الرحمن الرحيم ثم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد حبنها قولها وزير رده أحساب تقرنك قدونك ديننا كوردينيتنا معلمين جامعة ألفا isuduwayaasha gobolka Togdheer dhammaan waalidiinta qiimaha iyo sharafta mudan ee madasha ku sugan ardayda sababtay inay isu timaado intaas oo mas'uuliyiina ama intaas oo xubin sharafeeda ee iyaga aawadood safarka iyo jiidaasha loo soo galay muuqbaahiyayaasha qaaliga ah ee bahda saxaafadda dhammaan marti sharafta waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka salaamullaahi calaykum wa rahmatullaahi tacaala wa barakaatuh ama bacd waxaa ilaahay baa mahad dhammaanteed iska leh rabbiga suuro geliyey kulankaa la bilay ee qiimaha iyo sharafta lagu manaystay allaha inoo suuro geliyey inaynu isugu nimaadno meel dhow iyo meel dheer iyadoo qofna aanu walwal ka qabin halka uu ku socdo qadar rahmaan mooyaane wax ishortaagaya inaanay jirin allahaas baa mahad keligii iska leh waxaan u mahad celinayaa si gaar ah maamulka iyo macallimiinta oo ugu horeeyo madaxweynaha jaamacadda Alfa gudoomiyayaasha qaybaha ama gobolada dhammaan dhiimanka macallimiinta oo la'aantood fikirkooda iyo dadaalkooda aanay suuro gasheen in ilaa iyo gobolka Saraar Caynaba ilaa iyo Boorame ay isdaba yaalaan ardayda jaamacadda ka soo baxay ama aqoon-yahanka ku soo biiraya ee isdaba jooga aad iyo aad baan ugu mahad celinayaa runaantii waxaan la ilaawi karin marnabana la'aantood aanay suuro gasheen dadaalka iyo dardargelinta iyo dulqaadka iyo daacadnimada waalidiinta oo danyar iyo danroone inta ka dhexda u xidhay inay carruurtoodu noqoto carruur aqoon leh oo khayrkooda dunida jooga la tartama waalidkaas ayaanan ilaawi karin waanan u mahad celinayaa ilaahina waxaan uga baryayaa ifkana inuu ku guuleeyo aakhirana uu inta firdowso u siiyey ka mid yeelo waxaan u ducaynayaa isla markaana hambalyeynayaa munaasabadan maanta aynu isugu nimid darteed 260 arday ee isugu jira habla iyo inamo ee bartay fakallada kala duwan ee jaamacadda Alfa isla markaana maanta socodkayaga iyo ujeedada imaatinkayaga gobolka Togdheer iyadoo uu gobolkii naloo doortay yahay ama naloo igmaday inaanu ka shaqeyno maanta waxaanu u nimi idinka hambaliyadiina iyo inaanu idin la qaadano dabaaldegiina iyo farxadiina aanu idin la wadaagno waxaan idin leeyahay alf mabruuk hambalyo sidoo kale waxaan eeba idin ka baryayaa inuu noqdo cilmigiinu cilmi naafaca oo idin anfaca oo qaranka Soomaaliland anfaca oo waalidiintii idinku tabacday anfaca oo aakhiradiina yawmadiin anfacda oo awlaadaad idinku dhali doontaan anfacda taas baan eeba idin ka baryayaa inta ka bacdi waxaan filayaa wax la yiraahdaa may hadin waxaan u mahad celinayaa si gaar ah madaxweynaha jaamacadda Alfa oo runtii dardaaran mug leh oo tusaaleyna oo mid muhiim ah madasha ka sheegay hase yeeshee wuxuu yidhi ninkii qufacay ee uu yidhi ninka kale oo shifadhe lagala qoysay uu yidhi lagala qoysay bay marayaano dee way idinka arkaya haddana waxa la tootobinaya waxaan jecelahay inaan wixii la arki jirayna baa la yidhi waxoodii baa loo daayaa waxaan la arki jirina wax subxaanallah laga yidhaahdaa inaan axsaabta mucaaradka ah iyo waxoodii isu daayo ay caadadooda tahay runtii waxna aanan ka daba tegin waxaan jecelahay
inaan la hadlo aqoon-yahanka maanta hortayda fadhiya ee nasiibka u yeeshay inay qalin jabiyaan 2018-2019 ay ka mid noqdaan akademiga Somaliland u soo kordhay gaar ahaan gobolka Togdheer waxaan idin leeyahay mar labaad hambalyo waxaan idin xasuusinayaa Burco shay baa looga yaqaanaa gudaha Somaliland oo ummadda reer Somaliland oo dhami ay hoosta ka xariiqday runtii maaha madashii koobaad ee aan imaadee aqoon-yahan intan oo kale ah ama ka badani ay fadhiyaan balse waan idin xasuusinayaa waxaan jecelahay may tiri baa la yidhi waa kayd rage inaan maalin walba difcaddii eebba isoo gaadhsiiyo aan u dhiibo fariintaas oo aan xasuusiyo waxaa u caana Burco waxaa lagu yaqaanaa bay yidhaahdaan muwaadiniinta jamhuuriyadda Somaliland bun iyo toorre ayaa ku caana bay yidhaahdaan waxaan rajaynayaa maadaama oo sanadii ilaahay soo godaba ay ka baxaan kuliyadaha jaamacadaha university ee kala duwani 200 300 iyo in ka badani inaad saamayn iyo raad muuqdo ku yeelataan noolaanshaha iyo wadajirka gobolka Togdheer gaar ahaan magaalada Burco taas baan idin rajaynayaa waxaan eebba idinka baryayaa inaad noqotaan kuwa aan noqonin dameer melab sida oo kale oo aan dareemi karaynin wanaagga iyo faa'iidada ay haystaan iyo waxa ku duugan ee Ilaahay uu maskaxdooda dhigay ee aad noqotaan kuwa ka midha dhaliya isla markaana ka mid noqda kuwa adduunyada waxaan la arag oo hore oo tiknoolajiyada ugu horeyso iyagu maskaxdooda ka curiyay ee ku alifay runtii khudbadaydu waxay daaraan doontaa oo aan dhaafi doonin gobolka Burco sababtoo ah waxaan wuxuu yidhi adna geela waxaan kaaga bixin gaaridaa tahay waxaan idin la hadlayaa macnaha inaan idin xasuusiyo mar walba halkeebaad ku taagin idinku kuma tihiin qofkuna inuu naftiisa xisaabiya waa shay muhiima oo libtiisa iyo guushiisa kamida indhaweyd waxaad maqashaan Burco caasimadda labaad waa laga qaaday Burco waa caasimaddii labaad waa tartan furan in lagu tartamaana waa wax bannaan oo loo baahan yahay waana soo dhawaynayaa qof kasta oo u qalma inuu noqdo caasimadda koowaad iyo talabaad waa dalkeeniyo waynu ku hambalyeynayna haddaba isweydiintu waxay tahay ma isweydiiyaan reer Burco dad badan baa ku nool way isdiiwaan geliyaan way codeeyaan amnigay ka shaqeeyaan shaqooyinka madaxa bannaan iyo kuwa dawladaba way ka qayb qaataan waa maxay asbaabta keentay in ay Burcoteedu muran gasho oo ay noqoto tartan lagu tartamayo oo la isdhaafaya waa maxay sababtaas waxaan filayaa waxay Soomaalidu ku mahmaadaa oo dihaydha ayaa bahalkeed haada macnuhu waxa weeye hadday oodu dabacdo bahalku wuu ka soo boodaa macnaha haddii la waayo Burco mida Togdheer mida tartan mida wax wada lahaansho mida isu tudhid mida waa loo tartamaya Burco inay noqoto caasimadda labaad iyo inay saddexaad noqoto waa loo tartamaya ma muran baa ku jira waa maya muran kuma jiro waxaan rajaynayaa laga bilaabo maanta oo aad halkan ku fadhidaan aqoon-yahan 260 tiradoodu ay dhan tahay inaad u soo jeesataan oo baraarujisaan oo update garaysaan intii idinka horeysay kulana xisaabtantaan aqoontooda wixii ay gobolkan ka bedeleen idinkuna aad u diyaar garowdaan inaad suuro gelisaan Burco inay noqoto caasimaddii labaad ahna hooyadii qaranka Somaliland oo ka xaaraana in lagu tartamo iyadoo inay tartan sare gasho mooyaane marna aan dib u dhac laga helin taas ayaan idinkula dardaarmayaa waxaan eebba idinka baryayaa wixii wanaagaha iyo wixii la soo maray iyo waxaad jaanis u hesheen intaba waa la yidhi waqti dheer ayaad fadhideen runtii waqtiguna wuu kulul yahay intii safarka ku timina way safri doontaa biidni illaahi raxmaan waxaan mar labaad idinka mahad celinayaa inaad tihiin munaasabadaha intii aan ka qayb galay aqoon-yahan fadhiyay runtii aqoon-yahanka ugu akhlaaqda wacan ee aan wax hadalo oo ka baxaya madashan ay fadhiyaan aanad moodin inuu qof kaliya fadhiyo waan ku maamuusayaa waanan idinku ammaanayaa
ardayda maanta qalin jabinaysa waxaan idin leeyahay noqda kuwii guulaysta noqda kuwa qaranka wax ka bedela ilaahay idankii waqtigu ha idin saacida baan leeyahay mawdkuna ha idin ilaawo biidnillaahi raxmaan dardaaran waxaan idinka dhigayaa inaad aqoontiinna kordhisaan inaad gobolkiinna dib uga shaqaysaan inaad cilmigiinna dalkiinna gelisaan wax weeyaan waxaa hadalku ku dhan yahay hadalkii madaxweynaha jaamacadda alfa uu sheegay ayaa runtii dardaaran iyo aqoon iyo tusaalayn iyo xog waran intaba uu ku dhan yahay waxaa idinku filan wixii la soo maray gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee wicid injineer faysal cali waraabe ahna gaadhayaha qaranka Soomaaliland oo la xijeclo qaban ka qaba runtii waxaan idin leeyahay mar walba guulaysta noqda kuwa isku duuban oo aan noqonin keli ee aqoontoodu ay koox u shaqayso intii isku fakaliba ay alifto maxaynu qaban karnaa waxweeye dawladdeenu waad ogtihiin waa dawlad yar oo curdina run ahaantii dhaqaalaheena waad ogtihiin waa dhaqaale kooban waa waxa laga ururiyo cashuurta dalkeena ka soo baxda oo kaliya waxaynu u baahannahay inaynu ka fikirno sidaynu isu garab taagnaa oo aynu wax ugu kordhinaa ee uma baahneen inaynu ka fikirno hebel shaarka uu gashan yahay xaquu ka keenay wax ku ka sameeyay taa uma baahnin aad iyo aad baan idinku mahad celinayaa waan idin ducaynayaa waanan idin hambalyeeynaya waxaan anigoo fursadda ka faa'iideysanaya jecelahay inaan ku soo dhaweeyo wasiirka xiriirka golayaasha iyo dastuurka mudane maxamed xaaji aadan oo isaguna dastuurka xog waran fiican idinka siin doona falyatafadal wasiirka